رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحلقتني أفراد برنامج كاني رمضان كالاكتشافات العلمية في القرآن الكريم. حلقة waxaan kugu soo gudbinayaa xaqiiqo cilmiya oo quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku cadeeyay laakiin ay suurtagal tahay inaan sida uga raadin hadda ka hor. Baasha la yiraahdo shinnida waa mid kamid ah insectska ama cayayaanka kuwada ugu xikmadda iyo caqliga badan kuwada lagu jecel yahay oo bini aadamkuna ay wax badan ay ka faa'iidaan wax badan ay ka barteen. Ilaahay xikmado iyo cilmi aad u fara badan baa baashaas dhex dhigay oo icjaazaadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala hatta quraanka uu ku sheegay bay kamid tahay. baashaas magaceeda quraanka hal mar ay ku soo aroortay. sidoo kalena suurad dhamaaba magaceeda la siiyay fi suurati an-nahl. waxaan rabaa marka ajaa'ibta aan rabo inaan cadeeyo waxay tahay suuradan suuratu an-nahl Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu aad ugu fadilay oo aad ugu soo celceliyay tirada 16 number 16 lambarkaas 16 ayaa suuradan meelo badan ka muuqanaya. su'aasha marka waxay tahay aan isweydiinayno waa maxay cilaaqada ka dhaxeeya number 16 iyo baasha leeyahay shinnida maxaa ka dhaxeeya cilaaqada ka dhaxayn kartaa maxay tahay laana Ilaahay subhanahu wa ta'ala suuradan oo suuratu an-nahl leeyahay oo shinnida loogu magac daray wuxuu aad ugu xusay lambarka 16 ka meelo badan buu ku maaragtaanay isticmaalay yani nidaamka raqmiga buu isticmaalay 16 baa ugu badan. مثلا suurada lambarkeedu waa lambarka 16aad ee suuradaha quraanka lambarka 16aad bay ka tahay. aayadan hadda waxa rabbuka ila an-nahl aayadaas hadii la fiiriyo inta ay ka kooban tahay ayada dhanba waa 16 socota yani xuruufta Ilaahay isticmaalo xuruuf al-hijaa inta xaraf Ilaahay isticmaalay aayadaas waxa rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun aayadaas inta xaraf Ilaahay uu isticmaalay subhanahu wa ta'ala xuruuf al-hijaa'iga ah waa 16 xaraf waa aayada kaliya oo lagu sheegay shinnida magaceeda lagu sheegay. sidoo kale kelmadaha Ilaahay uu isticmaalo aayadaas waa 16 kelmadood waa markii lagu daro waawda oo kale waawul cadafka ama waawda oo kale mesela marka quraanka kelmadihiisa la tirinayo meelaha qaarna waa laga reebaa meelaha qaarna waa lagu daraa oo waawda kaligeeda wa awha rabbuka wa'daas sababta wa'du waxa la yiraahdaa xuruufta kale la mid ma ah xuruufta kale maaragtaanay macnaha faa'iideeya sida ba'do kale iyo la'do kale iyo fa'do kale iyo xuruuftaas macnaha faa'iideeyo macnaha keena iyadu la mid ma ahan oo iyadu way ka soocan tahay kelmadda ay la socoto way ka yani waa munfasil kelmadda kuma xirna marka maadaama ay ka soocan tahay macnana ay sido oo waawdu de waxayba wadaaba iyo macna dhan ah. sidoo kale dhaartay keeni kartaa waawdu waawul qasam ay noqon kartaa waawul cadf ay noqon kartaa maadaama macna ay sido hadana aysan xarafkii ku darnayn kelmadii ku darnayn waxay u badan tahay in gaar loo tiriyo oo sida yani awha ay kelmad u tahay wa'dana kelmad loo dhamaa maadaama xataa marka la dhahayo la kala dhaho wa awha rabb. marka hadii kelmadaha aayada la tiriyo iyadoo waawdana kelmad gaar laga dhigayo 16 kelmadood baa ku soo baxaysa yani inta kelmad oo aayadaas ay ka kooban tahay. suurada waxay ka kooban tahay yani meelo badan ba Ilaahay 16 kan ugu aayadaas suurada kale waxay ka kooban tahay 128 aayadood 128 aayadood 16 xagee kaga jirta waa 16 lagu dhifto 8 128 waa 16 lagu dhiftay 8 waa mudaacafaatu 16 waa 16 oo number lagu dhiftay numberka lagu dhiftana waa isla 16 kala barkiis Ilaahay amarkiis. وأوحى ربك إلى النحل أنت هذه التريو حروفته إلى أنت حرف أي كوبنت واللحي تبع مركا حدد في رسو حتى آيات كلمات سورة ضمن كلمات كوبنت أي سورة ضمن حروفته كوبنت وحاصر هذه التريو مضاعفات 16 أنبا إيمانيس يعني اللحي تبع أو نمبر لو قلت أنبا إيمانيس سؤال مركا واحد تهي لحي تبع يشني ما حاجة دحي نحيتها علاقاتك دحي يعني إعجازك علمي جاي ماشان كجرا وحويه هاي oo inaan isweydiino ay tahay oo inaan u fikirno ay tahay maxaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala yani suuradan magaca uu siiyay shinnida magaceeda ama shinnida iyo numberkan 16 maxaa isu keeni kara maxaa ay tahay cilaaqada ka dhaxay
haddii aan marka aan culumta casriga aynu dib u baarno waxyaabaha laga ogyahay shinnida waxaa ka mid ah yani markii hore lama ogaan karo quraanku xilligii uu degayay 1400 sano ka hor lama ogaan karin shinnida yani waxaan yani hadda ay microscope-yadu fududeeyeen xilliga lama ogaan karin laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala qaabka quraanka ugu ishaaraya cilmi socda waxyaabaha hadda la ogaado waxa ka mid ah shinnidu chromosomeska ama cadadka chromosomaad ee shinnidu leedahay 16 inuu yahay meesha bini aadamku ay 23 chromosome oo qof kasta bini aadam uu leeyahay 23 chromosome qof kasta wata oo uu hooyo iyo aabe ka kala helay marka chromosomeska shinnidu ay leedahay waa number 16 yani cadadka chromosomaadka ee shinnida ayaaba ah 16 idan haddii aad fiiriso cilaaqa qaabka Ilaahay u ishaarayaba waxaad moodaa inay tahay hidihii dhamaa ee shinnidaba inuu suurada ku ishaarayo maadaama suuradii shinnida ay tahay ama suuratu naxl ay tahay chromosomaadka ay leedahay shinnidu in Ilaahay suurada uu ku ishaaray lambarka chromosomaadka ay leedahay meelo badan uu ku soo celceliyay si bini aadamku balay u baaraan oo ay u soo saari karaan icjaaskaas cilmiga ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala inta iyo in ka badan buu quraanka dhex dhigay laakiin innaga waxaad moodaa in homework naloo dirayo oo numbarka Ilaahay isticmaalayo ما من حرف القرآن كما جرى إلهي سبحانه وتعالى حرف كستاء القرآن كمد علميسا يمارك تاني يعني وحو دحقلي أقون علم حكمة إساق وقراني بن آدم كان أنت كم مشغول شؤونه وفريه أنزله بعلمه والملائكة يشهد إلهي سبحانه وتعالى علمه سوران كان مركو دجيني علمه سأيكو دجي كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير إلهي سبحانه وتعالى هين فهم سيو قرآنك حكمتها هي عجائبته هي إعجازاتك هي أحكامته أو سيدو إلهي هين فهم سي. السلام عليكم.